kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Siciid Dani oo ka badbaaday afgambi ay damacsanaayeen ciidanka madaxtooyada Puntland iyo digniin culus oo loo diray ciidamada maamulkaasi xogo kala duwan oo ka soo baxaya isku day lagu qaarijiyay sargaal ka tirsanaa ciidanka dawladda hoose ee Garowe xaaladda Puntland iyo guud ahaan maamulkaas oo faraha ka sii bixisa iyo Siciid Dani oo ku fashilmay hogaaminta Puntland iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee maamulkaas ayaan falanqeyn ku sameyn doonaa balse marka hore saaxiibayaal si share gareeya muuqaalkan oo like na saara sidoo kale subscribe inoo saara YouTube-kan dhanka wararka si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka aynu ku bilawnay ciidamada madaxtooyada Puntland ayaa afgambi la damacsanaa Siciid Dani balse uu ka badbaaday xogo hoose oo helay dhanka wararka waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu ka badbaaday isku day afgambi ah oo ay damacsanaayeen saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada Garowe sida xogta la helay ay tilmaamayso ciidamadan oo tiro ahaan aad u fara badan ayaa qorsheynayay muddooyinkii ugu dambeeyay in la afgambiyo Siciid Dani oo weerar ku qaaday Boosaaso isla markaana qorsheynaya in mar kale gacanta uu ka dhigo gabi ahaan maamulkaasi balse hadda waxaa la sheegayaa in la fashiliyay qorashahaasi afgambi ciidankan afgambiga damacsanaa ayaa la sheegay inay taageero u yihiin ku heybna yihiin taliyaha la weeraray ee BSF ina diyaano waxayna si weyn uga caroodeen weerarkii Boosaaso iyo tallaabada uu qaaday Siciid Cabdullaahi Dani way ugu sheegeen inay mid dhaawacaysa qarannimada Soomaaliya asiya shacabtu waxa ay muujinaysaa in Siciid Dani markan aad u careysan uu soo wacay Axmed Karaash uu qabtay kulan degdeg ah oo la qaatay saraakiisha ciidanka madaxtooyada maamulkaasi Puntland oo digniin culus oo u diray kadib markii xogahan ay soo baxeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si adag ula hadlay ciidamada madaxtooyada Puntland ee ku sugan Garowe waxaa huwantihiin sharaftii ciidamada Puntland maadaama aad ka howlgalaysaan xaruntii laga hagayay dowladnimada saadarteed waxaa looga baahan yahay inaad ka dheeraataan wax kastoo dhaawici kara sharaftiina ayuu yiri cidii lagu helo wax ka baxsan xeyndaabka ciidannimo waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga ah oo ku habboon ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi talaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli qaarkood askarta madaxtooyada ay beelbeel iskula safteen oo keentay arrintii Boosaaso inay saameyn ku yeelatay dagaal ka dhacay bishii hore ee gudaha magaaladaasi waxaana sidoo kale qaarkood ay si weyn u qorsheynayeen afgambi Siciid Dani looga takhalusay gabi ahaanba ka sii arrimintiisa maamulka Puntland oo hadda fashil weyn u wajahayo Siciid Cabdullaahi Dani haddaba Siciid Dani ma ku fashilmay hogaaminta Puntland mise waa uu ku guuleystay 8 January 2019 loo doortay xilka madaxweynenimo ee maamulka Puntland hadda waxa ka soo wareegtay 3 sano marka la fiiriyo maanta Puntland ka hor Dani iyo maanta halkay taagan tahay waxa u dhaxeeya farqi weyn Puntland waxa ay markan ku sugan tahay xaalad khatar ah dhanka amniga dhaqaalaha iyo ciidanka intaba Siciid Dani maamulkiisa markii la wareegay xilka Puntland waxa hoos u dhacay dhaqaalihii maamulkaas shilinkii Soomaaliga ayaa laga diiday deegaanada Puntland dollar oo kaliya ka shaqeynaya magaalooyinka maamulkaas taas oo dhaawac weyn ku noqotay dhaqaalaha maamul goboleedka Puntland sidoo kale ma kala fiiriyo qaabka ay wax ku socdaan ee dhanka maamulkiisa waxa si weyn u dhaliilay waxgaradka odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulkaasi xilli Siciid Dani iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland ay kala huleeleen kuwaas oo geedfadhi u ahaa siyaasadda guud ee maamulka isagoo iska iloway iskana indha tiray odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda maamul goboleedka Puntland 3 sano kadib ina Dani ma haya hadda maamul dhisan oo Puntland ah marka laga reebo maamul kala qoqomay qabiil u dagaalamaya xilli kasta iyo xaalad culus inay ka taagan tahay gudaha Puntland taasi oo markale ku muujinaysa in Siciid Cabdullaahi Dani uu ku fashilmay hogaamintiisa maamul goboleedka Puntland sidoo kale dhanka ciidamada tan iyo Siciid Dani markii la magacaabay waxaa la tababaray ciidamo kumanaan gaaraya kuwaas oo hadda aan la helin gabi ahaantoodba kuna kala biiray beelaha iyo qabaylada ay u dhasheen taas oo mar kale muujinaysa in gacanta aan lagu haynin ciidan midaysan oo Puntland ay leedahay oo xaqiijin kara amniga maamul goboleedkaasi taa beddelkeeda Siciid Dani waxa uu qaaday 4 weerar tan iyo markii xilka la wareegay mid waxa uu ku qaaday gudoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi laba daareed oo si awood u xilka uga qaaday mid waxa uu ku qaaday Boosaaso oo 2 jeer ah midna waxa uu ku qaaday weerar kale oo la damacsanaa odayaal dhaqan oo ku jirsanaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kaas oo la fashiliyay
intii Siciid Deni uu joogay waxaa la xiray odayaal badan oo dhaqameed, siyaasiyiin ka fikir dhibtay habka maamulka ee Siciid Deni iyo wariyaal, taasi oo mar kale ku muujinaysa in Siciid Cabdullaahi Deni uusan ahayn madaxweyne u qalma in Puntland iyo wax la mid ah uu sii hogaamiyo. sidoo kale Siciid Deni hadda waxa uu hanqaltaagayaa xilka Villa Soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, hase yeeshee waxaa la isweydiinayaa nin laba gobol maamuli waayey miyuu maareyn karaa 10 gobol? waa su-aasha u badan ee shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ay isweydiinayaan. Siciid Cabdullaahi Deni hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, wuxuu ka badbaaday isday afgembi oo maamulkiisa la dabacsanaa, sidoo kale wuxuu ka badbaaday qorasho odayaasha dhaqanka ee ka dambeeyeen ee ahaa in Siciid Deni laga takhaluso, maadaama isaguba iska indhatiray odayaashii dhaqanka oo tiir dhexaad u ahaa siyaasadda maamulkaas iyo in salka loo dhigo siyaasad fadhiso oo Puntland 20 sano ay kusoo shaqaynaysay. 3 sano ugu dambeysay ayaa Siciid Deni madaxweyne ka ahaa maamulka Puntland, waxaa ka lumay waqti, waxaa ka lumay dhaqaale fara badan, waxaana ka lumay maamul hogaamin fiican leh, isagoo maamulkiisa kusoo koobay shakhsiyaad dana wadaag ay yihiin, kuwa ehel la ah iyo sidoo kale kuwa ay group gaar ah wada yihiin oo Aranjan la yiraahdo. marka hadda la fiiriyo qaabka wax ku socdaan Siciid Cabdullaahi Deni seefta ayaa qaadi doonta bilaha soo aadan haddii wax ka bedeli waayo maamulkiisa guracan ee shacabka, ganacsatada iyo odayaashii bay dhibsadeen, kaasi oo Siciid Deni koombo ku geliyay maamul goboleedkii Puntland kana dhigtayna hay'ad gaar ah oo isagu leeyahay oo qoyskiisa ay ka taliyaan, taas oo hadda si weyn looga dareemayo gudaha maamul goboleedka Puntland. Siciid Deni isaga ayaa ku eedeynayay Farmaajo waa kaligii taliye, balse maanta isaga ayaa kaligii taliyaha ugu weyn dowlad goboleedyada marka la fiiriyo maamulkiisa guracan, tallaabooyinkii uu qaadaysan ee ugu dambeeyay iyo sidoo kale saameyn togan ee ka dhalatay maamulka guracan ee Siciid Cabdullaahi Deni. xaaladda waxay u muuqataa in Siciid Deni uu u muuqanayo siqiir siyaasadeed si laciifaya, waqtigiisu uu dhimanayo, xaaladdan ay ku cakiran tahay. ugu dambeyntiina baaritaan ayaa lagu wadaa dadkii ka dambeeyay dil loo geystay sargaal ka tirsanaa dowladda hoose ee Garowe xilliga la soo qabtay. dilalka ayaa sii badanaya, ciidamadii way kala huleelayaan, intaasoo dhanna Siciid Deni ayaa sabab u ah sida falanqeeyaasha siyaasadda ay qabaan, oo waxa ay leeyihiin Siciid Cabdullaahi Deni uma wanaagsanayn Puntland madaxweyne looga dhigo, sababtaa waxa uu kala qoqobay maamulkii, waxa uu kala qoqobay ciidamadii, waxa uu kala leexiyay saraakiishii iyo sidoo kale ciidankooda. xogtadu waxay muujinaysaa in Siciid Deni gacanta maamulkaas laga farmaroojin doono. maamulka guracan ee Siciid Deni ee Puntlandna waxay dhaxalsiisay amni xumo, dilal joogto oo ka dhaca deegaanka iyo in shacabkii ay iska diideen gebi ahaanba ka sii arriminta Siciid Deni ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. hadda waxaa la soo qabtay oo gacanta lagu dhigay dad lagu tuhmay inay ka dambeeyeen dil loo geystay sargaal ka tirsanaa dowladda hoose ee Garowe, sida xogaha dhanka wararka uu helayo ay muujinayaan. dadkan la soo qabtay ayaa hadda baaritaan ku socda, sida xogaha aan helayno ay muujinayso. dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka Cabdikaafi Cabdixamiid Warsame oo lagu dilay Garowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. booliiska ayaa waxay sheegeen in ay dilka u qabteen eedeysane Cabdikaafi Ibraahim Aadan iyo 3 haween ah oo ku lug lahaa dilka sargaalkaasi. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa u mahad celiyay ciidamada booliiska, kuwa sirdoonka iyo bulshada oo gacan weyn ka geystay howlgalkaas, sida hadalka uu dhigay. guud ahaan saaxiibayaal wanaaginta wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Puntland tan iyo kulan dambe nabadiino.